wafdi horkacayay ergeyga dowladda Qatar u soo magacawday Soomaaliya Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani ayaa gelinkii dambe ee shalayto ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde iyadoona ay wehliyaan xubno sarsare oo ka tirsan wufuudda uu hogaaminayo Dr. bin Majid Al-Qahtani wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Bilaal Maxamed Cismaan iyo saraakiil ka tirsan arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoona wadahadallo kooban ay kula yeesheen wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar danjire Cabdirasaaq Faarax Calitano ergeyga gaarka ah ee dalka Qatar u soo magacawday dalka Soomaaliya Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani ayaa ah ergeyga gaarka ah ee wasaaradda amuuraha dibadda ee dalka Qatar u qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafyada Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani ayaana ka soo qayb qaatay dhexdhexaadinta Taliban iyo Mareykanka Qatar ayaana ka mid ah wadamada saaxiibada la ah caalamka ee dalkeena Soomaaliya gaar ahaan kuwooda naga gacan siiya mashaariicda horumarinta iyo taageerada dhinaca amniga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ali Taliya Cabdi Hirshabelle TV Jowhar